لينك قدام بيامروسا يس وحرونوسا أقول عمل محمد دريموسا wuxuu dareemayaa wixii aan dareemi lahaa naf walba oo jacayl dhaba qabta wixii ay dareemi lahayd ayuu liicaato si dhaba u dareemayaa waan ogahay adigu haddii aadan jacayl dareen lahayn inaadan dareemi karin laakiin waxaan taa beddelkeeda hubaa muuqaalka wejigiisa iyo nooca uu yahay markaad aragtid inaad ka dheehan kartid murugta iyo naxdinta uu qabo salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dheehanaysaana waa barteennii waa bartaan ku kulmi jirnay waa la ka hamidhi baro aad iyo aad ayaad u mahadsantiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay allah ayaa mahad iska leh sii sheergareeya barnaamijka asxaabta la wadaaga intaa kadib commentigiinu waxa weeye waa meesha aynu ku wadaagno afkaarta liked meel dheer bay ina gaarsiisaa waana dhiirigelin subscribe haddaa saartid janaalkana waxa weeye waxaad noqonaysaa daawadaha ugu horeeya oo muuqaaladayna daawada intaa kadib walaalaha qalbiga waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay allah ayaa mahad iska leh ka mug iyo miisaan weyn dunida dhammaanteed intaa kadib waxaan inoo hayaa dhowr muuqaal oo laga duubay liicaato iyo xaaskiisii maalmo dhexdaas ah adduunku waa iska taayir wareegaya maalinba gees buu ku socdaa taayirka wareegaya waxaa adduunka loogu masaalayaa taayirku saasunbuu wareegayaa meel ma fadhiyo sidaa daraaddeed adduunyadu waa iska wareegto sumayo oo diyaarad raacaysa oo dhaqaajin doonta liicaato oo murugo badan ay ka muuqato qof walba oo muuqaalkiisa dheehdaana uu dareemi karayo inuu qalbiga ku ooyayo waxba yaanan idinka dhexgelin bal muuqaalkan runtii anigu waa la dareemay aad baana maaragtay runtii uga murugooday walow aan waxba ka qaban karin idinkana waan dareemayaa inaad sidaasoo kaleeto ka murugoon doontaan bal marka hore ila daawado xir agoon oo camal maxaa u dareemaysaa dhab haye wejigiisu wejigii lii aadan maaha waa weji kale qof walba oo arkaa wejigiisa wuxuu ka dheehan karaa murugo aada weyn inay ka safrayso inay ku socoto meel uusan isagu ikhtiyaarkiisa ku tegi karin way kala duwan tahay xaaskaagii oo kaa safraysa laga yaabo inaad meesha ay aadayso wuxuun duruuf yari kaa hortaagan tahay oo dee tigid iyo wax lamida iyo lacag tigid lagu gato iyo shako noocaas waa basiid wax la heli karo laakiin markii sharci adag qofkaagii maraykanka jiro adigoo afrika aada joogtid baasaboorkaaga lagaga baahan yahay shuruudo badan lagaa rabo si aad ku aadi kartid aysan jirin xaaladdu aad bay u adag tahay waa sababta liibaan aadan cali wejigiisa bedelaysa hadda ka hor waxaan maqlay 3 bilood bay joogaysaa mar waxaan is iri ma barankiba barnaamijkani ma barankiba mar labaadkii waxaan u shakiyey ma aha baranki sababtoo ah wejigiisu nooca uu yahay iyada murug waa laga dareemi karaa laakiin waxaa la dareemayaa wax yarna inaysan maaragtay xoogaa walow 2 qof oo jilaa ay yihiin oo balaayo ah lii aadan cali hadduu yiraahdo waa matalayaa waxaan si dhab u matalayaa arrintan inay baranki tahay macquul weeye waa noqon kartaa macnaha waa wax caqliga geli kara inay baranki tahay
laakiin kolba sida aynu u jeedno way safartay. bal ila eega muuqaalka wejigooda, taas laftigeeda ayaa wax badan laga baran karaa. أظن عمل محاولة ريموسا حرونوسا أظن عمل محاولة ريموسا last minute last minute waa last minute buu yidhi. daqiiqadii ugu dambeeyey. waxay yidhi waa last minute ninkaa hadlaaya, waa daqiiqadihii ugu dambeeyey oo ay baxaysay. maca salaama isaguna uu harayay in ay Nairobi kaga tagtay lama rabin, Istanbul meelaha inay kaga tagtay la rabin. laakiin maaqaan kolba waa safarkaan waa safar dabcan degdeg ah siday ila tahay haddii aysan baranki ahayn. baranki haddii aysan ahayn, safarkani waa mid dhuunta ka soo galay oo aad degdeg u ah. maadsan لينك قدام بيامروسا حرونوسا أظن عمل محاولة ريموسا last minute say hi to Minneapolis. عجيب. adduunku waa iska noocaas moogta. adduunku waa iska noocaas. labadii qof oo ma garanaysa xalaal isu ah maasha Allah ilaahay qadartiis meesha ku kala tagaya hadda macnaha kala taga waxaan ula jeedaa safar. runtii waxaan ka iraahdaa oo kala garan maayo haddii ay safarkaani uu dhab yahay, maadaama ay dadkaani agtara yihiin wax kasta waa ka suuroodaan saa is leeyahay aniga. laakiin haddii uu sidaa ay u muuqata safar ay tahay ee waxaan jilliin uusan ku jirin, runtii waxay ila tahay waa wax naxdin leh aad iyo aad. walow gabadho ay ka timi waddan ay ka timi, isaguna uu ahaa nin qolqol jooga, iyaduna ay ahayd qurba joog. qurbaheeda ay isaga noqonayso, laakiin dadku indhaha dadku waxay rabaan sidii ay arkayeen oo quruxda badnayd, lamaana isjecel, wada jooga, farxad wada qaadanaya, lagu wada faraxsan yahay, dadku wada faraxsan yihiin bay ahaayeen, iyaguna isku faraxsan naftooda. sidaasaa la jeclaa inay sii wada ahaadaan, ku sii wada joogaan. laakiin waxay dani keentayo kalkacal baa ilaa darso, dadiyo dunya baa ka go'ay, waxbaa deris ilaa noqday. dugaagan weheshada dulmeeraya kaymaho, halkaadiga daydaydi halkan ayaye halkan degi kala durke, ilaahbaa deeq baxshee dulmiga cashaqa kada. waxbaa deris la ah
caawa hadduu dhoofiyey oo ay sidaasi dhab tahay asaysan barankii ahayn ee gabadhii duushay liicaato waabaa ku beriyey cidla ayuu qoob sagaaro ku hayaa cakuciil badanaa wuxuu xusuusanayaa ugu dambeyn xalay iyo markii lamaanihiisu dhinacay kaga jirtay iyo haddoo walaasheen quruxo barkintiisii quruxo ahayd quruxo ay laabta kaga jirto labay kala tahay iyadoo kolba safar dheer bay u socotaa oo maaragtay aada u daal badan ilaahay ha nabadgeeyo intaa ay sii socoto isaguna ilaa ay tiraahdo war waa nabad tegay alxamdulilah isaga laftigiisu waa daal iyo kurbo iyo waa qabaa laakiin nin dhalinyaro ah oo xaaskiisii aada u jecel yahay wallaahi anoo dhan jacayl baa hayaa jacayl ma fahmaysaan jacayl baaba igu dhacayba markaan arkay marka ninkii gabar uu jecel yahay oo weliba aada u jecel yahay si niyad ah kal iyo laaba ama gabadhii ninkeeda kal iyo laab niyad u jecel oo dhab u jecel inta ka safarto muddo ka maqnaata ay kulmaan markaas aragtidooda koowaad ama ka tegitaanka noocan oo kale ah laakiin saan oo kale markay dhacdo jacayl dhabihii jiro gabadhii ay wiilkii aada u jeceshaa isagiina uu aada u jecel yahay markay ka tegayso libaan xanjuu isku boojeynayaa buley waa hubaa waxani haddaysan baranki ahayn ee caadi tahay in uu ilmo celcelinayo waa hubaa oohin inuu isku celcelinayo sababtoo ah iftiinkii uu maanta dareemayay ma dareemayo markaa ma dareemayo mana dareemi karo keligiis maaha laakiin wiil walba oo xaaskiisa dhab u jecel waa la mid gabar kasta oo ninkeeda dhab u jecella waa la mid intaas oo kale bay dareemaysaa iyo inkasii daran isaguna intaa iyo inka daran ayuu dareemayaa kama hadlayo jacayladan waalidaahi kama hadlayo dee anugu jacaylada waalida ah oo iyagu waxaa jira dad isqaba isqabitaankooduna uu yahay dee nooc min alwaali waxay isku qabaan mararka qaybtood haddaa usii fiirsito ninkuwan kuwaan maxay isku qabaan wanaag isuma hayaan dan kaleeto oo ka dhaxaysa wax allaale iyo waxa ay isu qabaan ma jirto waa nin iyo naagti digtooda kacaysa hadal xumadooda kacaysa dagaalkooda kacaya murankooda wax kala maqli mayaan waxba runtii waa wax aada loola yaabo weeye waana wax ilaahay laga magan galo tanoo kale liicaato marka waxaan leeyahay ilaahay ha nabadgeeyo safar khayr qaba oo ducaysan ilaahay ha uga dhigo iyadana alla ha nabadgeeyo isagana qalbiga caadi ilaahay ha uga dhigo waa haddii aysan barankii ahayn sababta aan maanta dhan baranka uu soo celinaya wax kale maaha war ninkani waa actor iyaduna waa actarad wax kasta way jili karayaan way dhici kartaa inay jili karayaan sidan inay ku macasalaamaysis way u badan tahay intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nooli kulantaad